iyo gabadhii marka la isku soo aroosiyey oo gurigii la isugu keenay mid walba wuxuu waayey noloshii uu filayey oo isla hadda mar guursato nolosha way ku qaboobi mid kasta waa waayey waana midda maanta guryaheenna burburida weeye oo la arkaya gabdho garooba ah oo la arkaya wiilal odhanaya waxaan soo maray 10 waxa way dumar ah haye taa weeyaan aayadda bilowga hore aan ku bilownay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu lahaa wajacala baynakum mawaddatan wa raxma maxaa loo waayey ilaan hadalka ilaahay subxaanahu wa tacaala waa xaqe maxaa loo waayey waxa keenaya marka ugu horraysaba diinta islaamka dhaqankeenna kuma salayn wiilka iyo gabadha markay isdoonanayaan mid walba waxa uu sheegayaa been gabadhuna waxay marsan waxyaaba wiilka soo jiida markaas hadda waxaa dib dambe ka soo baxaya kalarkeedii saxda ahaa wiilkuna gabadha wuxuu ku mehersanayaa hadallo been ah ilaa waxa weeye Soomaali baa tiraahda haween been baa lagu soo xerogeliyaa runna waa lagu dhaqaa taasoo isticmaalaya markii gurigii la yimaado marka maxaa ka dhashay ilaa waa laba qofood oo marka xataa meherka la joogo meherka laftigiisa laga run sheeginba gabadha waxay oran si gabdhaha kale aan meel isaga saaro 5,000 ii dheh $5,000 ii dheh markaas waxa la oran gabadhii heblaaya ay 5,000 baa lagu meheriyey haye gurga oo dhan wuxuu ku aasmayaa hadal waxa way iga celi ah dumarkuna waxay dooranayaan wiilal waxa weeye jilbaha surwaalo ka jeexan yihiin oo waxa weeye madaxu gaduudan yahay kaas goorma xaq ilaalinaya kaas ilaahay subxaanahu wa tacaala qiyaanay oo diintiisa qiyaanay goorma ka naxaya haye samidan waxa iscadayday ee jirkeedii badashay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aan uga baqin goormay waxa weeye diin alla ku ilaalin goorma heshiinaysaan mawadda iyo raxma waxa helaya kuwa diinta ilaahay ilaaliyay haye وإسقى لها رسولك صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك رجع إسقى الله يا رسولك صلى الله عليه وسلم أيو يردو مركا واحد لو قرصة 4 أسبابات رجع ودونتان هاي من واحد إيجا يا كل يا قبل حوله هذا بالعين لا إيوه إيد يا قيان إيوه دخانه يسمو فيرين midna waxa haweenka u guursanaya waxa way qurxoon tahay waana mid maantan aan fayday oo gabdhihii waxa way qadka ka bixiday gaba illa la waaye gabar madow illa mid yar oo ilaahay u naxariisto mooyaane haye meelaha la isku cadeeyo ama meelaha laga gato waa la buuxaa waa meesha lagu yacay weeyaan maxaa keenaya nin kastoo damad waxa way gabar goobaya oo guur raba waxa eeganaya kaliya mid iscadeeya bas hadda maxaa ka dhalanaya in gurigii oo burburo haye dumarka marka waxa loo guursadaa waxa weeye oo raggu ku xishaamu ka sallallahu alayhi wasallam xoolay leedahay ama waxa weeye waxay ka soo jeedaa xasaba fiican ama waxa weeye quruxda laakiin rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa uu noo xulayaa si guryaheena looga helo mawadda iyo raxmo looga helo oo ay noloshu u wanaagsanaato midda diinta leh taasoo noo xulayaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam marka inay guryuhu burburaan gabdhow adinka asbaabaad ku leedihiin maxaa yeelay wiil ilaahay qiyaanay oo suwaalka jilbaha ka jeexan yahay oo jeebisku ka dhacayo ama satintiisii guduudsaday oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waddadii uu amra ka leexday oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam khilaafay goormuu adinkaa naxaya haye waxaad maqli gabadhii hadda aad waxa way soo mehriday waxaad maqli muddo ka bacay in gabadhii la furay haye ilaa shala waxayba taagneedba anigaa raba laygu mehriyo anigaa raba ilaa waa nin yare haye markaas waxa loo maleeyay ranti inay tahayba in James waxa way la xirto haddana mid la qaato waxa way jilbaha ka jeexan haye war wiil ilaahay ilaalin waaye oo diintiisa ilaashan waaye goormo sharafta ku waardiyeynaya war adigu ilaahay ka baqa dumarow liana maxaa yeelay gurgu waxa way heblayo waa la soo furay oo waxay maraydaa 5 nin sharafku ma ahan haye se waxa idina waxa way dhalinyaro إلهي سبحانه وتعالى كبقى سيقريها الله وحوي الله قهر ما وضعي الرحمة مدك لو وحوي أراسينا مركا الله ديانا يو سيقريه قيمة ويشان وإلهي سبحانه وتعالى الله رالقليو أو ربي قرقين أودك مد وارا أو قيمة يشان أراسينا ربي جل وعلا كل رالقليه أرسبا كل حين مردحي هيس لك قراعي مركا سواحد قلت لك إنا صحوغا بالله دعوك سوقتو markaas waxa la iga horkeena shiiqow meesha tacsiim ma ahan wacdi laga marrabo meesha wacdi laga marrabo tacsiim ma ahan meesha waa arosna waxyaabahan kale laga xiiseeyaaba haye marka meel ilaahay lagu caragelinayo
oo marka ugu horrayso la abuurayaba ilaahay lagu carageliye goormow waxa weeye qiimo iyo wanaag yeelanaya si marka guryuhu ay khayr u yeeshaan ay wanaag u yeeshaan oo waxa weeye gurigaasu ilaahay subxaanahu wa tacaala u bulaaliyo waa in marka ugu horraysaa diinta ilaahay laga ilaaliyo